markii albaabka soo jukaysay ee walaalkeed ka furay wuxuu arkay walaashiisoo dharka dhan ku jeexjeexan bahdilan lugaha xataa kor u qaadi karin dhaawacay xataa ku yaalaan oo indhaheedana biyaha fadhiya markay walaalkeed aragteen ee iska qaracantay oo dhulka ku dhacday walaalkii wuxuu ka bixi waayay yaa saan ku yeelay aabeedoo kor soornay wuu soo degtay yaa saan ku yeelay yaa saan ku yeelay maxaa kugu dhacay gabadhii maxay ku jawaabtay balna kacshaan dhegeysanay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة محياتولي وقصة عدم في شيء سي صومالي عملي يقولوا له ذهبوا محايا لي قصة وقصة عن سلاية هاي مركل الدقيقة قبل الله وكلاته حتى حمر حتى له مقدشو غير كان قبل يويل إليهن marka ilmaadeero badan way qabaan laakiin gabadha iyo wiilka leereer ka dhaleen gabadha iyo walaalkeedba isku dugsi sare hal mar ay wada dhameeyeen jaamacad ay wada dalbadeen walaalkeed jaamacadda waa waayay laakiin walaasha nasiibkeed way heshay jaamacadda markay heshay gabadhii jaamacadda maalba aadaa way soo noqotaa way iska taqaanaa waa meel tuule ah mugdi hala soo dhaxmaraa waa la imaanaa guriga iska imaanee dhibaatada ilaahay waa ka wareeji jiray se u socotay maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday waxaa dhacday gabadhii iyadoo mugdiga soo maraysa cabsina gashay ee iska quraan akhrisanaysa jidkeeda soo noqonoq leh ayaa nin qabsaday ninkii soo qabsaday nin xoog leh oo ahayo hoodka ku sii jiitay gabadhii meesha ku farxumay dhibaato kufsi iyo silac iyo jirdil u geystay gabadhii meesha ugu dhaqaaqay markuu dantiiska gaaray gabadhii waa iska soo xaafsatay iyadoo rafaasan ooyinayso silacsan dhibaatadeeda taal ee dadkan iska fiirinaysa mugdi tahay ayay gurigooda albaabkiisa soo garaacday markay albaabka soo garaacday waxaa ka furay walaalkeed wuu qaracmay xusaan yaa ku yaal gabadhii ooyintii wixii isku dartay dhulkay ku dhacday aabeed korka soo degtay gabadhii waa la qaaday sariirtaa la seexiyey waa la wareystay dharka jeexjeexnaa iyo wixii bustaa lagu dadaboolay gabadhii waxay tiri muscab waaye waa muscab waaye waa wiil xaafada degan asagana jaamacadda la dhigto yaa waa muscab waaye reerkii isma wareysanine adeeradii aabihii walaalkii qoryaa la wada qaatay qoryo aa la wada qaatay xabadee waaya reerkii albaabka lagu jibiyey muscabkii waa la dilay muscabka aabihiis oo maxaa dhacay yiri waa la dilay reerkaas adiga 6 qofood aa dhulka laga dhigay 6 qofood reerkan kaleete ee gabadhaanete ee dhibaatada la gaarsiiyey igan 4 qofood ka dhimatay ilaa xabadada la isku furo isxaan la isku masameynay reerkii biliis ayimid biliiska wuxuu aruuriyay reerkan gabadhan oo aruushay ilaa ka dara ku soo duulaamay wala aruushay xabsiga lagu shubay xabsiga markii lagu shubay gabadhii bil dhalatay dhamaatay waa hurdaa riyo xunay gashaa waa hurdaa iyadoo ooynaysa soo kacay adi xaaladeed xaalad xunay noqotay markay bil ka soo wareegtay maalmaha ka mid ah ayadoo habeenka jiifatay ayay waxay ku riyootay riya ah hooyadeed dhimatay waxay leedahay maxaa reerkaas 6 qofood ka dhimatay iyo 4 inta ka dhimatay adaa u sabab ah adoonan wixii waxa kugu sameeyay aan si fiican u arkin mugdi ah ayaad reerkaas aad masabitay reerkina way ku baabeen gabadha hurdada kasoo booday iyadoo ooynayso walaalkeeda kusoo ordeen iyo walaalaheed waxay dhahday gabdhaha walaalaheed waxay tiri hooyaday aarigii igu timid maxay leedahay anaa dhib lii geystay hooyaday saasay tiri reerkan waxay tiri adiga dembigooda saaran adiga dhamaysa camal adiga yani u sabab ah waxay yidhi riya le waaye ka cudubilis markay seexataba riya xuna u timaadaa saas oo ahayd ayaa habeen ku mid ah waxay ku riyootay ayadoo jiifto ayadoo la leeyahay ninkii ku xoogay oo rafaadka ku geystay muscab ma ahan muscab waa nabatay way soo naxday sidii uu reerka isku yimideen waxay dhaheen waa riyale iska seexo way seexatay markii haddana 2 habeen kasoo wareegatay ee seexatay haddana sidoo kale riyadii u timid hooyadeeda u timid oo leedahay muscab ma ahayn ninka ku dhibaateeyey meeshuu kugu dhibaateeyey isla habeennimadan uu joogaa
orotag waxay sheegayaan soo dhegeyso riyaday kasoo kacday hurdada markay kasoo kacday iyadoo qaylinayso markaas walaalkeed wuxuu yidhi maxaa kugu dhacay dharka inta iska bulshay dharka gashatay waxay tiri soo bax maxaa dhacay waxay tiri hooya waxay dhahday tiri meeshii lagugu xoogay ee rafaadka lagugu geystay bartii ayuu ninkii ku xoogay joogaaye orotag soo bax meesha waa juq walaalkeed waa soo raaceen meesha istaagu yiri juqdaas nimanaa ka hadlaya waxay sheegayaan soo dhegeysana waa soo arkaa haye juqdii walaalkii soo baxay soo gagambanay oo yimid warkii u dhageystay nina wuxuu leeyahay mida wuxuu leeyahay war nin yahow muscab adigu lagu maleynay way ku fahmi weysay cula way ku fahmi weysayo muscab ay kugu kahday nin dhana dartaa lagu dilo reer dhan loo dhameeyey adaana qaladka sameeyo ninkaa marka indhuhu taagay wuxuu is yiri walaalka wuxuu is dhahay inta haddaad istusisid yani wax ma ogaanaysa tartiib juqjuqda tartiib intuu sii socday war waa qofka wejigiis intuu arko wejiga markuu si fiican usii fiirsho muxuu arkay wuxuu arkay inay adeerkiis dhalay xasan inay adeerkiis waa inay adeerkiis ayaa gabadhan walaashiisa dhibka u geystay waa in adeerkiisa asagoo naxsan oo dib intuu usoo noqday oo gabadha walaashiis gacanta kasoo qabtay oo guriga keenay oo wuxuu yiri abaayo aniga niman waa soo arkay laakiin waxaa adoo kaa sheegaya ma arkin wuu baxayay xabsiga aabihiisa la xukumay xabsi ku jiro aabihiisa xabsiga intuu u tago yiri aabo hee gabadha walaashay wax dhibka u geystay oo xoogay wuxuu ahaay xasan ibn cami wiilka adeerkay dhalay ee xoogay aabihiisa wuxuu yiri tallaabada qaadis ha ahaato inaa usoo dhamaysid kow ka siisid wiilkii talada aabihiisa oo raacay wiilkii u dilay kow oo ka sii وانا سودو كسودو متقانا وحو كسودو دول او بنان او بيع لو ربي او انتو فايو دب انتو كسوسيو نبادي كسولا 20 سنة كسو وريغتي 20 سنة كدب ayaa dhulkii markii neel gatay ninkii gatay cagaf la gelin lamsan cagafka xala arkay surwaal iyo shaati iyo fanaanad booliiska la wacay wixii la raadiyay dhaqaatiir la wacay wixii la silbaare waxa la ogaaday markaan inuu qof lahaa wixii la sii raadiyay wala waay saani cirib waa bala waayo طلب محو كسمي أغلى الأركي أول فيه اللي لو فعن ما راح نفتك اسمه لما هذا الهاي حقو كبح سؤال اسويدين في عمام مثلا واحد البوليس كوي صابحين حقوقي مدين ويكي حسن هاي تركيس نركي أوكينن هو يدي وحال نركان نركي ويكي هاي جميع هاي يتر ويكي حسن يدري ويحد اللي ميقان هلا راش لا فيه عاو وحالي هدي الراجل بصمات وحالها لي فرع وحالها لي أو كفدي عليهد ولا الكيد لكن الله يرحم الراحمين لبعتن كسنو جدهودي أيوب كود أنت أسجن واد أنت إلهي باي واد أنت الله رحمه يلا جارجو السنة أوه ملهاي لا في الراجل لا في حقوقي إلا الآن وحال راجنا لا فيه ولا الكيد مشوقي ولا لا إلا الآن ولا لا لكن غيركي ساسو جبجبوين ولاني دبعتي لو جستي وحين قد سكتري وحلادتك وعالم ماشي دتك والدة أهل قرش مرت نفسي أقول وعالت واو هذا بدأ وكسعدها وقص عبدي بلا مدري والله قص عجيب له قصة ما أنت سيكو إكتهاي قصة لمدة غير بضاعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته